xil wareejinta labada agaasimo guud oo runtii laba agaasimo guud oo labadaba aanu isnaqaanay iyadoo aanan wasaaradda waxbarashada aanan imanin agaasimaha guud hore imika wasaaradda gaadiidka u wareegay Axmed Abubakar markii igu horeysay isbartay labadoodaba waxaan isku baranay sameyntii qorshihii qaranka ee NDP2ga Axmed Abubakar wuxuu markaa ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga markii qorshihii qaranka la sameeyay ee haddana hormagelinta ama prioritizationka la waday ayuu halkaan nagala shaqeeyay uu wasaaradda si fiican noogu soo dhaweeyay wixii aan uga baahnayn runtiina wuxuu ahaa waxa weeye Axmed agaasimo guud oo hawlkara oo maskax furan oo dulqaad badan oo flexible ah wixii isku darsaday astaamo badan oo hogaamintu leedahay oo hogaamiye leeyahay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muddadii uu la shaqeynayna wax badan oo guul abaynu guud u wada gaadhnay oo had iyo jeer ale marka la wasaarad ama institution guul gaadho dadka madaxda un baa loo nisbeeyaa laakiin dadka runteeda guusha gaadhay waa shaqaalaha iyo madaxda gobolada iyo agaasimo waaxidiyada iyo dadka technicalka weeye imika waxaynu tusaale aynu u soo qaadan karnaa iskuuladii sanadkii hore aynu dhisaynay agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiirku gudoomintu bay lahaayeen laakiin dadkii curinta iyo shaqada technicalku ay ku dhacaysay waxa laga bilaabo agaasimo waaxidiyada imika waxaynu bilownay barnaamijkii waxbarashada ciidamada hadii sheer waxa la oranayaa wasaaradda waxbarashada gaadhay oo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud baa laga yaabaa in dadana la xusuusto laakiin waaxyaha ay qosaysaba gaadhay oo ilaa gobolada u socday oo macallimiintoodii adeegsaday oo hawlaha soo dhow fuliyay tabletiska aynu iibinay safe shidder isagana inoo soo iibisay dhawaan aynu qaybin doono aynu ugu tala galnay dhulka banaanka ardayda kala filiqsan ee baadiyaha joogta ee aan wali iskuul ka qayb galin aynu ugu tala galnay imikana aynu ugu soo darsantay in aynu ku darno ardayda maqalka baahiyaha gaarka ka qaba oo kuwa aynu ugu horeysiin doono aynu tabletka insha Allah iyo qaar kale wasaaraddu ay soo iibisaba aynu siin doono waayo waxa ku duuban tabletska qoraxda ku shaqeeya waxa ku duuban casharadii fasalka koowaad ilaa 12aad oo dhameystiran oo afka suuldhabaalahana lagu sharaxayo marka inta badan ardayda markay dugsiga dhexe yihiin baahiyaha gaarka qaba xagga maqalka waa macallimiin loo tababaray oo aan badnayn baa joogta laakiin markuu doonayo inuu dugsi sare galo halkaana laga yaabo inuu dugsi sare ku oolin dugsi sare u gaarina aanu jirin halkoodaas aynu dugsi sare ugu aqoonsanayna dabeetana macallimiin la'aanina ma helayso waxaynu u qaybinaynaa tabletka qoraxda ku shaqeynaya ee ay ku duuban yihiin dhammaan casharadii marka guulahaas oo dhan wada jirkeena aynu ku gaadhnay kuwa dambana wada jirkeena ku sii wadi doonaa agaasimaha guud ee cusubna waxaan wada shaqeyn jirnay isla beriga NDP2ga aan wada shaqeyn jirnay oo waxa wasiirka waxa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka oo wuxuu hogaaminayay wadaagaha oo uu hogaaminayay si cilmiyeysan oo karti leh oo aqoon ku sareysan oo dulqaad ku jiro oo la jecelo ay ka muuqato wadanka iyo sektorkaaba u qabo dabeetana ay dhalisay NDP2ga qaybta khusayso oo dhan iyo qaybaha kaleba inuu hogaaminayay isagu farsamo ahaan iyo madax ahaan isagana waxaanu leenahay halkaagii baad ka sii bilaabi doontaa hogaaminta fiican ee aynu beriga ku wada shaqeyn jirnay waxa marka la yimaado ee shaqo la wada qabanayana waxana sharciga iyo boolisiga iyo nidaamka yaalaba haga wixii inta dhexdooda ana kulli fikirka dadka ayaa iyo xaaladda markaa jirta ayaa lagu hagaa